هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أما بعد وأن سلامنا دمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسجويره iyo walaalaha maatmaciin oo u istaagay garab qabashada walaalaha maatada Soomaaliyeed si walba ay ugu gargaaraan in ay u tagaan. walaalayaal ilaaha mahad iskale marka koobaad. الثاني ama ثانيا midda labaad waxa mahad ballaaran iskale walaalihii Soomaaliyeed ee ka soo jawaabay videogii hore ama videogii aan isbuucii hore soo dhignay barteena Facebook iyo barteena YouTube-ka ama baraheena social media maamada Soomaaliyeed ee cabanaysay in yaani la garab istaago la garab qabto oo loo fidiyo garab istaag badan. walaalaha maatmaciin waxa ay booqdeen maamadii Soomaaliyeed ee cabashadeedii ahayd in yaani la garab qabto walaalo muxsiniin ah oo Soomaaliyeed ee muslimiin ah ayaa walaalaha maatmaciin ku soo hagaajiyay deeq gaaraysa in yaani maamada qaybteeda koowaad ee baahida lagu daboolo. intaas kadib walaalaha maatmaciin waxa ay booqdeen maamadii Soomaaliyeed ee cabanaysay una geeyeen amaanadii iyo deeqdii ay u soo dhiibeen walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah una gudbiyeen. insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo muuqaalkan waxaan ku soo bandhigi doonaa booqashadii walaalaha maatmaciin ay booqdeen maamadii Soomaaliyeed ee cabashada soo gudbisay. wada daabano insha Allah xubno ka tirsan xubnaha walaalaha maatmaciin waxa ay booqasho u sameeyeen maamadii Soomaaliyeed ayaga oo fariintii walaalihii muslimiinta ay soo gudbiyeen u geeyay. muxsiniinta Soomaaliyeed maanta maamadii soo booqanay oo aan video ka diyaarinay alxamdulillah taa kulan fiican ilaa hadda wili soo gaarin laakiin maamadii waxaan u keenay xogoor micnaha bil ku sii muddo insha Allah oo ka kooban bur iyo bariis iyo sokor iyo baasto iyo timir iyo saliid iyo joodari ay ku saaxato. haddana wili way dhiman tahay micnaha hadda waxay codsanaysaa in la soo caawiyo sida guri loogu helaa insha Allah. muxsiniinta Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay soo caawiyaan oo ay dadaalaan maamadana hadda insha Allah kulli ida hadda doonto codkeeda insha Allah iduu adinaya duleera maam waxaan rabaa waa nin codkadi waaba ii dadaasheen dadaalka in ii dhameeytirtiin oo wixii ii dham ii soo dhameeytirtiin aan iga rabaa guriga ii dhaman guriga ii soo dhameeytirtiin aan iga rabaa. hadda yani dadka muxsiniinta Soomaaliyeed wiilashaada gabdhahaada wixii ay soo dhiibeen qayb kamid ah waxaan kugu soo gadnay raashin iyo joodari iyo yani in yaro kooban oo bil ku gaarsiiso marka insha Allah maxaa leedahay waa ii keenteen waa ii keeneen ma sha Allah marka maxad maxaa ka codsanay inta waxaa ku codsanaa intii li arkaayo gurigaan ku codsanaa eesaan ku jiraa. hadda waxaa rabtaa eeska in laga bixiyo oo guri lagu dhiso wiilasha Soomaaliyeed gabdhaha Soomaaliyeed oo hooyada awta taas ka codsanay miya insha Allah kulli way gaar doontaa codsigaada aygan insha Allah way ku jawaabjona muxsiniinta Soomaaliyeed saasaan rajaynaa duleera insha Allah hooyo. hadda inta waxaan rabnaa inaad meel aad dhigato aad xafidato insha Allah raash. walaalayaal maadaama aad ka soo jawaabteen cabashada maamadii shalay ee aan idiin soo gudbinay anagoo ah maatmaciin waxa aan maantana idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaad maqdaca qaybtiisii labaad ee ah in ay cabashadeedii maanta ay u baahan tahay maamada in loo dhiso hooy iyadoo habeenkii ka gasho dhaxanta iyo dhilmaayada maalintiina ay ka gasho qorraxda kuleelkeeda. sida aad shalay jawaab inoo soo siiseen inoogu soo falceliseen maantana waxaan idinkaga baahannahay inaad na garab qabataan na garab istaagtaan si maamadaasi aanu isugu xil saarno in aanu u dhisno hooygaasi ay iyadu u baahan tahay. walaalayaal mar walbaba waxa aanu u taagannahay garab istaaga walaalaheena Soomaaliyeed ee daruufaysan idinkuna waad nagu dhiirigelisaan oo waad na soo garab qabataan. ilaahay ajir aan la soo koobi karin Allah idinka siiyo annagana sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ayaan ka weydiisanaynaa dambi dhaaf iyo ajir aan la soo koobi karin. dhamaanteennaba Ilaahay ajir ina wada siiyo waxaan u istaagnay in aanu garab qabanno dadkeena Soomaaliyeed ee haddana tabaalaysan ee maatada ah. haddaba walaal waxa aanu sameynay adeega raqamka maatmaciin oo aad ugu soo hagaajin karto maamada maadaama shalay videogii hore la saaray laba number oo markaasi maatmaciin iyadu ay ka turjumaysay
maanta maatamaciin waxay idiin saartay in aad maamadaasi uga qayb qaadataan dhismaha gurigeedaasi. maanta maatamaciin waxay idiin soo bandhigaysaa hal raqam oo ah maatamaciin number oo aad uga soo qayb qaadan kartaan dhisidda gurigaasi si aan ugu taagno guri habaysan, guri nidaamsan, hoy iyadoo ay ku faraxsan tahay sida ay maanta u farxday oo kale. waxaan doonaynaa inaanu ka farxino dad kalena aan u sii gudbino insha Allah. aad baad u mahadsantihiin barnaamijka. haddii aad adigu ka mid tahay walaalaha dhiirigeliyaasha maatamaciin iyo garab istaagayaasha dadka masaakiinta ah, waxaanu ka codsanaynaa in aad nagu soo hagaajiso wixii aad awoodo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacanta kuu saaray. haddii aadan awoodinna waxaan kaa codsanaynaa inaad dadka kale u sii sheergarayso si dad muxsiniin ah ay qayb ugu noqdaan barnaamijkan gurigaasi maamadana loo taago idinkana aad u wada aragtaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟